waa maxay isku buuqa maskaxdu? Dadka qaba isku buuqa maskaxdu waxay isku arki karaan dhibaatooyin ah xagga fikirka, dareenka ama dhaqanka. Marka si kale loo eego, fikirkooda, dareenkooda iyo dhaqankooda ayaa isku qasan. Waxay taasi si weyn waxyeello ugu geysan kartaa xiriirka ay dadka kale la leeyihiin, shaqadooda iyo ku istareexa noloshooda. Lahaanshaha isku buuqa maskaxdu waa dhibaato ku adag qofka iyo qoyskaba, laakiin ma aha wax ceeb ah. Maxaa keeni kara isku buuqa maskaxda? Waxaa muhiim ah in la fahmo in qabista isku buuqa maskaxdu aanu ahayn khalad uu qofku iska leeyahay. Marmarka qaarkood dadku waxay rumaystaan in isku buuqu ka yimaado cadownimo, ciqaab ama ilaysi, balse dhakhaatiirtu waxay rumaysan yihiin inay jiraan waxyaabo keeni kara isku buuqa maskaxda oo ay ka mid yihiin kiimiko maskaxda ku jirta oo aan isku dheelitirnayn, warwar iyo dhibaatooyin maalin kasta qofka haysta, dhacdooyin maskaxda u xun oo qofka soo maray. Waa dhib sidii loo garan lahaa xaqiiqada sababaha keena isku buuq kasta. Marmarka qaarkood dhib jidhka soo gaadhay ayaa muujin kara calaamadaha cudurrada ku dhaca maskaxda. Isku buuqa maskaxda ma la dhaxli karaa? Cilmi baadhistu waxay tilmaamaysaa in dadka qaarkii ay dhici karto inay dhaxal u leeyihiin inuu dhaco isku buuqa maskaxdu. Sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo adag oo keeni kara. Waa in arrintan aad kala tashataa dhakhtarkaaga. Miyaa la kala qaadi karaa isku buuqa maskaxda? Isku buuqa maskaxdu ma aha hargab ama jadeeco oo kale, mana aha wax la kala qaado.